markaan meesha tagnay waa laga boodaa gaariga keenta lagu cararaa ana waxaas dhahay marka wax badan lama soconayo laba tilaabo le waaye birta horaa ka arkaysaa oo Poland waa fadhiisanaysaa laakiin sida aan mooday iyo sida ay noqotay aad bay u kala fog yihiin wallahi waxaan soo arkay oo waliba muuqaal aan idin kaga wado ayaan rabaa inaan idin tuso bas markii meesha la galay meesha ma dhawo noqdada anaga aan rabnay 335 ayay ahayd annagana location-ka naga qaldamay ribriigina waday wuxuuna geeyay 346 farqiga u dhaxeeya waa dareemi kartiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday aniga talaabo waa gadin waayo habeen 8 saac habeennimo ama 2 habeennimo ayaan gaariga ka degnay laba tilaabo markaan qaaday ilaan meesha ood waaye waa la tilaabsanaa mugdi waa toosh lama daari karo ciidamada laga cabsanaa inay ku arkaan la diidaa kuwa kale nooma dhawo okay waa dhacay markaan laba mar dhacay oo ninkan carabta wuxuu yiri dhalinyarada Soomaaliya ninkan garab aan siino aan qaadno wax la soo qaadar soo socdo wabiyana soo xiray inta dii loo baxan wabi waayo qorshe waxa la keenay in wabigas la maro alwaaxa la soo qabtay biyo badanna ma ahan wabigee alwaaxiya la dhigay qof walba inuu meesha ku socdo oo dhax maro baasaboorkayga wato waa iga qoye mobilkii waa iga qoye waxaan ku dhahay qof walba i qaado meesha waa ila dhacaale dhaawacan saasoo igu soo gaaro horta kow adiga waxaan rafaado oo aan rafaado wabigas waa gudbay wabiga markaan gudbay oo dhinac kale aan u gudbay meeshii haddana maba dhawo 10 kilomitir aan oo dhiman waaga horta meeshuu noogu bariyay waaga markuu noo bariyay haddana soo soconay silaga Belarus imaanay silaga Belarus markaa imaanay qodanay oo silaga aan ka hoos baxnay wiil Soomaali Maxamed saaxiibkayga qaaliga kaanan ka salaama Poland ayuu joogaa maanta Maxamed kaas iga hormaray san inta u sixdo gacmaha iga qabto isoo jiiday oo isoo bixiyo dusha isoo saartay oo meesha ila soo gudbay wadadaas markii laga soo gudbo dhinac kale loo gudbaayo hadii silagaas la taabto waxa waa ciidamadii soo baxayaan oo Belarus soo cararayaan eeyay watan wala kala cararaa marka aniga keentiya liga dhex tagay marka fiidiyoga keenta liga dhex tagay aan garguuranayo ila daawo marka waad aragtay fiidiyowga Soomaaliya anigoo garguuranayo keentaas ayaan waxaan ku dhex jiray wallahi oo billahi oo tallaahi muddo 6 saacadood ah waxa jiray fiidiyow aan rabay hadana in aan duubo oo aan rabay inaan marxaladaas ku jiro aan idin tuso isla fiidiyowga sabta mar kale ila fiiri ilaahi subhanahu wa ta'ala ya mahad iskale habeenii maalin aan soo soconay kaneeco habeenii maalin aan soo soconay hadda waxaan ku jirnaa xadka Poland birta laakiin wax yar ay iga dhiman 900 mitir ay iga dhiman dhalinyaradii waa kala carareen kaliya inta fadhiyo inta badan dad badan ay soo ximbaaray ilaahay khayr ha siiyo kaneeco ay cunayso ma duubi karo muuqaalka waxa saas iigu dhigaayo waa kaneeco qof ila joogta malahan ilaahay oo kaliya ila joogay 6 saacadood aan keentas ku dhex jiray inta daafirsidna waa keen hoosteedana waa biyo qaybtaas wali waa dad badan oo fiidiyowgan daawan doono oo Jarmalka iyo Poland kala joogo ayaa jiraan oo aniga isaaciday hal qof ila jooga malahan ilaahay oo kaliya ila joogo intaan fiirikeen waxaan isdhahay maanta hadii meeshan lagaaga tago wax qad ku shaqeynayna malahan hadii aad caawinaad wacan laheedna wallahi aad u niyajabay markaasaan bilaaway inaan garguurto inta ka bax waa fadhiisana inay waa daaleysa qof socon kara malaha alwaaxo tiirarka soo dhacay oo barafka uu soo riday aan meesha ka buuxaan coos baa inay wax kala male laba wiil aan markay noqdada 46 ay istaageen ee waxay dhaheen warniyo ninkii naafada ahaa aan u noqono nimanka carabtay soo wadeen labadii wiilna way soo raaceen ما استغفر الله 3 wiil soo raacday Abdi Asiis Maxamed iyo
rashka aa soo raaceen. rashka hadda meelo ku dambeeya ma aqaano, laakiin cabdicasiis jarmalkan ku ogaa intaan kaa salaama saaxiib, abaalkaas weligay ma iloobi doone. waxay ii keeneen bahasha lagu seexdo oo la dhex galo ee ii keeneen, bahasha lagu dhex rido, afarta dhinac iga qabteen, way socon weyse, dhiiqaa lagu socdaa. maxamuudka wuxuu yidhi dushaan saaranaa ee qof walba tookatooka ha u qaado. dushaa lii soo saaray, cabbaar markaan socdaba waa ka dhacaa giyo fiiraha soo ii xanuuna ilaahi subxaana watacaala ayaa og. jilibka haddana waa lii qaadaa, waxaas dhan uma jeeda inaan qofka dushii saaranahay. gacmihii saan aan u qabanaa, labadii murqu saanta qofka u qabsanaysaa markuu ku ximbaaro. labada lugoodna wuxuu sameynaa labadiisa dhinacoodu sas ugu soo qabanaa. labada lugood cajirihii waa bararaa markay dhaheen laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. kadib waxaan tagnay noqdada 46. 46 markaan tagnay aan wax yaroo nafis helay. 35 aan u soconnaa. 46 iyo 35 farqiga u dhexeeya waa dareemi kartaa. meeshaan seexane 10 saac galabnimo markay tahay ama 4 galabnimo aan ka soo kacnay. aala yiri waa la baxaa, waayahay dadkii dhan way daaleen, wax raashiin ma wadano, sidee ninkan lagu qaadi karaa? waa marka alwaaxa la soo jibiyey, midka carabta alwaax soo jibiyey. anwar intaan kaa salaamaa, alwaaxuu soo jibiyey. markaasuu wuxuu yidhi alwaaxana lagu fadhiisanaa, laba qof in laga qabto. hal alwaax oo qof ku fadhiisanayo, labada dhinac laga qabana, saana u qabsanayo, waa socon weyse. waa la fikir, waxaa la qorshihi marka hore lagu soo qaaday waa in lagu qaadaa. dushaa laygu soo xirtay, waa layla soo cararay. anigii xanuunka uma adkeysan kari, inan gacmihii dhan way xanuunayaan, lugihii way xanuunayaan, si xun saasay ii qabanayaan, anigana xoogaan u qabsanaa. waa layla dhacaa, waa istaageena, waa layla dhacaa, waa istaageena, waa layla dhacaa, waa istaageena. gabalkiyaa nagu dhacay. waxaan imaanay webi u dhexeeyo Belarus iyo Poland. meeshaan dib ku shidanay, wax yaroo timir aan wadanay aan meesha ku isticmaalnay. meeshii aan fadhiisanay, waaga intuu nooga baryaan sugaynaa. maya ii waa la baxaa. buuq yaraa meesha ka dhacay, waa la isqabsaday. waxaa go-aan lagu qaatay in webigaas laga tilaabo. wallaahi webigaas qaabkaan ugu tilaabay ana xataa ma sheegi kari. waxaa jirta buundo yar oo alwaax ka samaysan saas u saaran. alwaax marka saas tashiilkaas uma ahan, alwaax saas u kala fog yahay. inta markuu qofka lugta dhigo haddana waa tilaabsanaa. marka waxaa la hadii la ximbaaro culayskaa badanaayo, webiga iskula dhacaysiine maxaa la sameynaa? anigaa waxaa dhahay marka iqaada isaara. markaa isaartiin gacantan inta aan dhiganaa, lugtaan soo qaadaa, dhinacan kalaan dhigaa, hal maraan dabada dhaqaajinaa, dhinac kalaan saaraa. saasaan webigii kaga soo baxay. buundada yariista saasaan usoo maray. waa soo socna, waxaan soo soconnaba waxaa inoo muuqatay birta Poland. rajaana soo gash, niidda inoo dhismatay. horta muuqaalka oo dhallinyarada ay ximbaarayaan hal mar aan idin tuso. muuqaalkaas aad aragteen oo dhallinyarada aniga ay ximbaarayaan waxay i keeneen noqdada 35. sawirkeedana waa idin tusi doonaa. noqdada markii anigii i keeneen ee meeshii i dhigeen, waxay dhaheen intaan ka badan naga bes waaye, tabartu way naga dhammaatay, waxaan cunnay iyo waxaan cabna ma haysano, intaan kaaga tegaynaa, waxaan samaynaynaa, dhallinyaro kalaan soo wacanaynaa, dhallinyaradaas kale ayaa ku saacidayso. saaxiibkayga Nimcaan inta ayaan ka salaamayaa, walaasheeda Nasra inta ayaan ka salaamayaa. iyada hadda waxay kusoo laabatay Miniski, Nimcaana sidoo kale Miniski kusoo laabtay. dhallinyaradii ay qaaday meel yaroo dab ugu shidnaa ayay i geeyeen. dabkiiyaa meesha ku shitay, meeshii ayaan fadhiistay, waxa cuna ayay i siiyeen. waxaa lii dhigay bahal yaroo lagu seexdo, bahal yaraa liigu hubiyey. waa jareeyey qawoobkii iyo biyihii aan kasoo dhex baxay iyo rafaadkii. kaniiniya liisii, wax waa iga tari waaye, waa istaagi waaye, waa dhaqaaqi waaye, waa socon waaye. muuqaalka oo dabka aan shidanaya idin tusaa, ila daawada. waad aragteen soo maahan? sheekada ma dhowo, haddaba aad ayay u dheer tahay. haddaa intaan soo gaartay, inta dhiban iyo rafaadkii igu dhacay markaad aragtiin adinkaa dhihi doono arrintaa maaha barangiya waa dhab.